Asalaamu calaykum Soomaaliya salaamaya marka koowaad marka labaad waxaan rabay inaan idila wadaago war cusub oo kasoo kordhay warqadii TPS-ta warqadda TPS oo Temporary Protected Status warqadii la siin jiray dadka muhaajiriinta ah shalay oo bishu ahayd bisha koowaad 13-keeda 2026 wareegtuu immigrationka Mareykanku soo saaray waxaa lagu sheegay warqadda in matalan Soomaalida laga joojiyey waxay warqaddaas ugu dambayso Soomaalida inay usii shaqayso bisha 3-aad 17-keeda 2026 warqadda caddeynteeda gadaal ayaa idinka tusi doonaa waxaan rabaa oo kaleeto inaan ka hadla dhowr qodob oo kale matalan xaalku sidiisii hore ka bedelan yahay magaalada waxaa joogo amaba gobolkan Minnesota waxaa joogo ciidamo ICE oo lagu sheegay qiyaas ahaan 3,000 ilaa 5,000 markii hore Twin Citieska magaalooyinka mataanaha sida St. Paul iyo Minneapolis nawaaxigooda ayay dadka qaban jireen laakiin hadda ilaa 70 kilomitir ilaa St. Cloud waxaad arkaysaa dad shalay laga soo qabanayo marka taa ha la ogaado midda kale waxaa kaloo muhiim ah dadka I-94 ka haysto maalin dhaweed waxay yiraahdeen dadkii yimid 2 sano u dambeysay waan dabagalaynaa si sharci darra ayay qaarkood ku yimaadeen ay yiraahdeen kolley waxaas waa marmarsiiyo hase yeeshee waxay matalan ay banaysanayaan qaabkii matalan dadkan ay ku dhibaateyn lahaayeen marka dadka I-94 ka haysto ayaguna ha taxadaraan I-94ka waa sharci ku meel gaara lagu gaaro intuu qofku permanent resident ka noqonayo oo matalan 1 sano haysto ka hor intuusan green card qaadan dadka green card ka haysta ruuxoodu waa inay taxadaraan waxaa kaloo rabaa inaan idila wadaago caawa anigoo magaalada St. Paul dhex maraya downtownka waxa lagu yiri meeshan ICE taagan marka xilligaas waxay ahayd adiga 10kii habeenimo marka ma aqaan inay qofkaasi uu maaragtay hadal oo cabsiina uu sheegay iyo inuu run sheegay ma aqaan anigu ma arkin laakiin marka xitaa habeenkii dadka qaarkood oo habeenkii qaraaban jiray ha taxadaraan arrinta kale markay dhacdooyin dhacaan ama meelaha la isugu yimaado sida ayaan dhacweed markii gabadhii dhimatay Soomaali badanaa timid Soomaalida badankooda timid waxay wateen calaamada Soomaaliya aan ogaano calanka Soomaaliya na laguma haysto calanka laakiin dadku waa muwaadiniin dal islaameed ayayna joogaan Soomaali waa ahaan jireen jinsiyadda Soomaaliga waa haysan jireen laakiin hadda dadku waa dad Maraykan ah marka waxaa loo baahan yahay inay arrintaas ay maskaxda ku hayaan marka waxay isweydiinayaan dadka qaarkood oo cunsuriyiinta oo iyaga ah waxay leeyihiin dadkani walow ay jinsiyadda qaateen haddana xitaa daacad u maahan dalka Maraykanka marka waa arrin nalaga soo geli karo oo dulduleel ah in matalan halkasta oon istaagnaba aan calaamada Soomaaliya aan wadano marka arrintaas laga taxadaro in meelaha matalan la isugu yimaado iyo meelaha booq iyo waxaas calaamada dadku ay soo qaataan taa laga taxadaro taas waa mid arrinta kale waxaan arkay meelaha dhacdooyinka qaarkood markii la isku yimaado oo ay dad qabanayaan dadka qaarkood ay meesha ku soo aruuraan dadka qaarkood in aysta wax ku tuuraan ama baraf iyo waxa lagu tuuro mararka qaarkood gacan qaad la sameeyo ha laga taxadaro arrintaas dhibaatadeeda ay leedahay waxa ku qoran sharciga immigrationka qolyahan aysta qofkii gacan u qaado wuxuu mutaysanaya 2 sano oo xariga haddii aad matalan hor istaagta xitaa oo aad obstruction ku samayso waxaad ku geli kartaa dambi ayaad ku mutaysan kartaa marka arrintaa laga taxadaro aan isticmaalno keliya First Amendment oo ah matalan xuquuq dastuuri ah qofku inuu hadlo meesha istaago qayliyo boorkiisa haysto magaciisa ugu qornaadaan wuxuu rabo uu sheego
laakiin haddaad gacan qaado amaba matalan aad jidgooyo samayso arrin dhibaatadeeda leh waaye oo ay ku adeegsan karaan. ayaan dhaweyd gabar waxaa lay sheegay mexicana adiga waxay ku samaynaysa meel kastay istaagaanba waddaday ka xiraysa halkaan adiga dhibaato badan ku samaysay. markii dambe waxay fiiriyeen gaarigeeday u fiirsadeen taargadeeda iyo wixeeday sawirteen kabacdi sidaas ayay ku raadiyeen. waxaa lay sheegay inay maxkamadeenay oo xireen alayaa lay sheegay. taas waa mid sababta waxay ku cuskan karaan qodob oo dastuuri oo xeerka ciqaabta ka mid ah ayaa lagu cuskan karaa mar haddii aad waxaa lagu dhihi karaa obstruction uu sameeyey oo ah jidgooyo amaba matalan shaqo federaal oo socota ayuu hor istaagay. taas waa qodobo culus. arrinta booliiska aan maqlaayay waayadan oo dhan dhammaanteen waxaan la soconaa booliiska hala waco. booliiska aad wacdiida muxuu ku qaban karaa? su-aashaas ayaan rabaa inaan ka jawaabo. booliiska ruuxoodu dhowr dhacda ayaan ku salaynayaa iyo ayaga ruuxooda matalan waxyaabihii aan matalan kala socdo. booliiska waxyaabaha qaarkood waxbuu kaaga qaban karaa, waxyaabaha qaarkoodna waxba kaagama qaban karo. maalin dhaweyd waxaa dhacday qolo oo fiisuhu ka dhacsan yahay oo matalan ay suqaabi kusoo ogaadeen maaqaane ay soo raadiyeen waddadan I-94 eastiga ayagoo saaran ayay istaajiyeen. markay istaajiyeen kabacdi boolisay wacdeen. booliski waa yimid adiga federal ID ula soo baxeen oo ice ah waa tuseen. booliska waa qulqulay waddada hore si raacay. marka nimankan waa hay'ad federaala, booliskuna waa booliski stateka, laakiin wixii xadgudubyaha qaarkood ay samaynayaan amaba report inay ka qoraan iyo waxyaaba noocaasa maana wax badan kama qaban karaan. waad arkaysan gabadhii markii la dilayay maalin dhaweed la dilay boolisku waa yimaadeen oo hubaysnaayeen iska ninkii matalan booliska dilay muxuu ahaa gabadha dilay oo bastooladiisa jaabka gashanayo boolisku waa fiirsanayeen waxba kama qaban karaan. marka boolisku laakiin waxyaabay kaa qaban karaan waxaa ka mid ah wax kaa qaban karaa ista xaq uma lahan inay property destruction sameeyaan, inay hantidaada jebiyaan, gurigaada ay albaabkiisa soo jebiyaan, business aad leedahay albaabkiisa ay jebiyaan. waxyaabahaas oo dhan xaq uma lahan. marka waxyaabahaas waa haddii aad ugu yarto wax way ka qabanayaan. waxa kale ay wax ka qabanayaan ay ruuxeeda report bas ay ka diyaarin karaan maane wax gooniyo matalan qof ay samxiri karaan. waxa kale ay wax ka qaban karaan boolisku haddii robbery lagu samaynayo oo qola gangis ah iska dhigayso ayagii ice iska dhigayso, haddii aad ka shakiso ay ku dhibaataynayaan, haddii aad ayagu wacdo boolisku shaqadooda qabsanayaan. taas waa ka adag yihiin. marka booliska matalan ha la wacdo laakiin ha la ogaado waxyaabaha inay xadidan yihiin oo waxay qaban karaan ay kooban yihiin. kaliya governorka meeshan qof kasta ahi xitaa general attorneyga inuu warqado gudbiyo oo dacwadda maxkamadda federaalka u dira maahne cid wax qaban kartaa ma jirto markay boolis federaal ay joogaan. taas waa midaas. arrinta kale waxaa jiro dhacdooyin tira badan oo iska soo daba noqnoqonayo oo la leeyahay maaragta xitaa dadkii I-94 ka haysta ayaguna waa halkoodu matalan waa xabaa ku jiro. marka arrintana ayadana marka ku celinaa arrintaas dadkaas ha taxadaraan. waxaan rabaa inaad tuso warqaddii ka hadlaysay in matalan TPS temporary protected statuska warqaddii la siiyey Soomaalida, dadka Soomaalida ah ee muhaajiriinta ah in la joojiyo caddeynteedan rabaa inaad tuso. warqaddu waa tanaa weli maaragta lama publish garaynin, laakiin waxay yiraahdeen laga fiirsado qaybta online-ka markaad ku dhufato waa tan andabeedii cali waa tanaa waa tana shalay on January 13, 2026
Secretary of Homeland Security decided to terminate protected status for Somalia. Marka intaan laga bilaabo shalay warqadaas waa laga joojiyey dadka Soomaalida ah ee hore u haystay. macnaha sababta waxay leeyihiin waxay matalan sharcigan marka warqadan wuxuu dhaqan galayaa oo ay ku eg tahay March 17, 2026 lixdan maalmood ka bacdi marka warqadan la daabaco. wareegtada halka website-ka ku daabaceen halkana waa waaxda immigrationka US Citizenship and Immigration Service. marka maxay ku macneeyeen marka waxay yiraahdeen sababtu waxa waaye Soomaaliya waa soo hagaagtay meelahan ay ku qornayd Soomaaliya waa soo hagaagtay ku qornayd meelahan sidaa daraadeed dadka Soomaaliya ka imaanayo xaq uma lahan warqadaas. dadka Itoobiya ka yimid ayaga Itoobiya dadka wadamada loo ogolyahay ku jirtay ayaga horey buu ka dhacday welina looma cusboonaysin taas hadda kama hadlayno kayskaas. okay halkan ayada ruuxda Ethiopia waa TPS benefits under Ethiopian designation will end February 13, 2026. tan dadka Etoobiyaanka ah amaba Soomaalida Etoobiyaanka ha ahaado amaba Etoobiyaanka kala ahaadee ayadu waxay ku eg tahay 13 February. marka intaa halala socdo intaasaan rabaa inaan idinla socodsiiyo. waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado waxaa jira dad badan oo la qaqabtay haddana aan matalan meel loo raadiya aanan jir qaarkood ay xiran yihiin laakiin meel ay ku xiran yihiin wax yaqaana ma laha. looyarkoodii kama warhaayo qaraabadoodii wax xog ah kama hayaan qofkan meeshii ugu hagaagi lahaayeen. marka qofka waxaa fiican dokumentiyada oo haysto inuu koobiyeeyo oo koobi ka qaado kabacdina uu u dhiibo qof uu ku kalsoon yahay oo qaraabadiisa ah amaba saaxiibka amaba qaraabadaada ah. so markii lagu waayo matalan qofkaasi wuxuu la xiriirayaa looyarkaada qofkaas inaad looyarkaada aad u sheegto inuu looyarkaada xogtaada u gudbin karo. badanaa looyarada qofka macluumaad iskagama sheegayaan ilaa adiga ay ogolaasho kaa haystaan. marka qofkan iyo looyarka isku xir qofka qaraabadaada amaba saaxiibkaada iyo looyarkaada isku xir si lacalla markaad dhacdadan ay kula soo gudboonaato oo lagu xiro si matalan qofkan iyo looyarkaada u shaqeeyaan u wada shaqeeyaan in arrintaadana matalan gacanta loogu hayo. waxaa soo haray hantida dadka qaarkood hantiya ka khasaartay baabuuray ku qornaayeen maalinahood arrintaas waa ka hadlay haddana marka lagu celinayaa. waxaa fiican qofku inuu power of attorney qof u qoro warqad oo matalan wakiilasha ah hantidiisa inuu matalan inuu isagu wakiiluga yahay inuu ku qoro. waxaa kaloo qofku samayn karaa warqadan oo lahaanshaha baabuurka inuu meel la buuxiyaa jirto oo qaybta daba ayuu qofku buuxinaya wuxuu ku qorayaa qofkan kaleeto xogtiisu ku qorayaa. so hadhow tolo qofkan wuxuu awoodi karaa inuu matalan inuu gaariga gado haddii lacalla qofkan ay cilada ku timaado oo waddanka laga masaafuriyo. arrinta ugu dambayso ballamaha dadka qaarkood hadda gabar maanta ballan tagtay ballantii ka kaxaysteen markay aragtay may qaracanta miyaa kulle hadda waxaan maqlaa isbitaalkan Southdale dina ayay ku jirtaa. ballanay u dhigeen ballantii tagtay ballantii meeshay ka qabsadeen. marka ballamaha haddii aad gooyso oo ballan immigration iyo ballan ice haddaad leedahay waa kala labo. ballan maxkamadeed haddaad leedahay horta ballan maxkamadeed lama gooyo tan kaleeta ice anigu wax commenti kama bixi karo ma aqaan laakiin tan maxkamadda cawaaqibkeedaan ogahay haddii uu qofku ballanta gooyo oo maxkamadda gooyo
waxay u noqonaysaa marmarsiyo markiiba judgeka meesha jooga ama xaakimku markiiba go'aan u gaaraya ah qofkan inuu xukumo oo iyagu sida ay rabaan uu xukumo. keliyana maahan arrimahan immigrationke kaysaska caadiga haddii aadan maxkamadda imaanin waa lagaa xukumaya wixii aad matalan adigu aad qofka kale isku haysteen. marka intaasaan rabaa inaan idinla socodsiiyo. salaamullah.